Thank you, Mr. President. mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan sameeyo hadallo dheeraad ah anigoo ku hadlaya awoodeyda wakiilka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si aan toos uga jawaabo eedeymaha uu jeediyay wakiilka Israel ee iga hor hadlay Before me. mudane waxaan rabaa inaan soo jeediyo 3 qodob. First, action is marka koowaad falalka ay ku kacayso awoodda gumaysiga ee Falastiin iyo guud ahaan gobolka waa kuwa si buuxda loo diiwaan geliyay. falalkaasi waa xadgudubyo cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah. waxa aan mar walba aragno waa falal lagu cabsi gelinayo bulshooyinka rayidka, dambiyo ka dhan ah bani'aadanimada, barakicin qasab ah oo loo geystay bulsho dhan, gaajo lagu hayo dad aan waxba galabsan, dil iyo dhaawac loo geystay boqolaal kun oo qof. haddana qofka ku kacaya dhammaan falalkaasi ayaa maanta ina baraya waxa ay ugu yeereen xasuuq iyo arrimo la mid ah. what they call genocide and things like that. I'm shocked. waxaan aad ula yaabay hadallada gefka ah ee ka soo yeeray wakiilka Israel. haddii aan ka hadlayno xasuuq, waa Israel tan indhahayga hortooda maalin walba ka geysanayso. isagu waxa uu matalaa dowlad dishay in ka badan 70 kun oo qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur, haween, waayeel, dhaqaatiir, shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanno ku jira isbitaalada, burburisay kaabayaal muhiim ah isla markaana si ula kac ah u gaajaysisay shacabka Gaza, deliberately starving people of Gaza. in halkan hortayda ah golaha sharafta leh lagu eedeeyo Soomaaliya in ay gashay xasuuq waa arrin gabi ahaanba qosol leh oo aan la rumaysan karin. qodob kale oo aan rabo in aan xuso ayaa ah in uusan wakiilkani waxba ka aqoonin waxa ay Soomaaliya tahay, halka ay joogaan Soomaalidu iyo waxa ay Soomaalidu taagan tahay. taariikhda uu ka hadlayana waa mid xulasho ah oo uu maskaxdiisa kaligii ka samaystay. aan wax yar idin baro arrintan. Soomaaliya waa hal dal, hal shacab, lehna hal diin, kuwaasi oo si wada jir ah oo la dagaalamay gumaysigii si ay u helaan xornimo. Soomaaliya sidoo kale waa dal maanta si midaysan oo la dagaalamaya ururada argagixisada ah ee Geeska Afrika, iyagoo ah hal shacab oo ku midaysan hal diin iyo hal qowmiyad. terrorist organizations in the Horn of Africa as a one group, one religion, one ethnic group. And then when you say the Somaliland, marka laga hadlayo waxa aad ugu yeerayso Somaliland, waxa loo yaqaanay British Somaliland. waxa ay ka koobnaaday 2 gobol, waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. maanta waqooyi bari oo ah 45% dhulka iyo dadkaba waa qayb ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrintan hadda laga hadlayo waa waqooyi galbeed oo kaliya. halkaasi sidoo kale waxa ka jirta dhibaato. kala bar waqooyi galbeed, gaar ahaan gobolada ku dhow xadka Djibouti, si buuxda ayay uga soo horjeedaan sheegashada aad ka hadlayso mana jirin wax xasuuq ah oo ka dhacay Soomaaliya sida aad sheegaysaan. Soomaaliya waxa ay martay dagaal sokeeye. dagaalkaasna waxa uu yeeshay saameyntiisa. waxaan aaminsanahay in dagaalkaasi sokeeye sidoo kale laga maalgeliyay dibadda. sidaa darteed in halkan nala yimaado casharo ku saabsan bani'aadanimada, xasuuqa, xuquuqda aadanaha, madax bannaanida iyo dimuqraadiyadda annagoo og waxa aad maalin walba sameynayso waa aflagaada. arrintaasna kama aamusi karo anigoo aan ka jawaabin. waad mahadsantihiin mudane madaxweyne.